allaha u naxariistee Farxaan Maxamuud Aadan Afrax oo ku geeriyooday qarax ka dhacay shalay magaalada Muqdisho ayaan ka sheekeynaynaa maantay. magacaygu waa Cabdirasaaq, halkaan nagala socotaana waa Cabdirasaaq Channel. kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. haddaba muuqaalkan waxaan rabaa inaan kula wadeego bulshada Soomaaliyeed taariikh nololeedkii allaha u naxariistee gaashaanle sare Farxaan Maxamuud Aadan oo loo yaqaano Farxaan Qaroole oo ku geeriyooday qarax ka dhacay deegaanka Basra. haddaba Farxaan wuxuu dhashay 1990 wuxuuna ku dhashay magaalada Muqdisho. Farxaan familigiisa wuxuu ka kooban yahay hooyo iyo aabe, 4 caruur ah oo cunuga labaad uu ka yahay iyo 2 oo asaga ka weyn yahay. Farxaan wuxuu ku dhashay xaafadda Wardhiigley ee magaalada Muqdisho, wuxuuna ku soo qaatay halkaas heerkiisii dugsiga Qur'aanka ilaa uu ka noqday xaafid Qur'aanka dhameeyay. Farxaan wuxuu waxbarashadiisa ku soo qaatay dugsiga hoose dhexe Ablaal, qof walba oo degan magaalada Muqdisho uu yaqaanaa. Farxaan heerkiisii waxbarashada dugsiga hoose dhexe ee Ablaal ayuu ku soo dhameeyay, halka uu dugsiga sare uu ku dhameeyay Alpha Secondary School ee ku yaala magaalada Muqdisho. haddaba Farxaan wuxuu ku soo barbaaray qoys ehludiin ah, ehlu sharaf ah, aad u weyn oo ballaaran oo ku nool geyga Soomaalida oo dhan. Farxaan wuxuu ahay nin wadani ah oo wadankiisa iyo dadkiisa jecel. Farxaan asagoo heli kara fursado badan oo dalkan uga dhoofi karo, haddana maalin iskumoona taagin inuu ka baxo dalka. Farxaan waxaan ognahay inuu helay boqolaal fursad oo uu kaga dhex bixi karay Soomaaliya oo dhan, uuna ku tegi karay dal labaad oo nolol fiican iyo heerka waxbarashadiisa uu kasii wato oo ku gaaro. Farxaan wuxuu dhameeyay jaamacadda Balaasma ee magaalada Muqdisho, kadibna wuxuu galay ciidanka booliiska Soomaaliyeed, wuxuuna tababar ku soo qaatay gudaha magaalada Muqdisho iyo dalka Turkiga. Farxaan wuxuu ahay nin jecel dalka iyo dadka Soomaaliyeed, wuxuuna ahay nin dhalinyaro ah oo aad iyo aad u maskax badan, jecelna suu dalkan ku gaarsii lahay horumar iyo nabadgelyo buuxda oo waarta. Farxaan wuxuu ku soo barbaaray magaalada Muqdisho, weligiisna kuma riyoonin inuu ka baxo magaalada Muqdisho ilaa ay tiisii uga timid oo taariikhda ahayd September 30 2022 maalin Jimco ah ayuuna geeriyooday. Farxaan wuxuu ahay geesi xaq u dirir ah, mujaahid ah, shahiid ah, kuna dhintay cadowga Soomaaliyeed gacantooda. Farxaan wuxuu ku soo barbaaray uuna magaalada Muqdisho, maalinna uunan ka tanaasulin inuu ka tago. Farxaan waa aabbe leh 10 caruur ah iyo 2 xaas. Farxaan waa aabbe haystay korsanayay 10 ciyaal ah iyo 2diisa xaas, xaaskiisa labaadna ay ka mid tahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed. haddaba Farxaan waxaa lagu xasuusan doonaa halgamadii oo u soo qabtay ummadda Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinkii uu ka bixiyay magaalada Muqdisho iyo la dagaalankii dadkii arxanlaawayaasha ahay ee ugu dambeyn ku qaarijiyay asagoo ka hortagaya shacabka degan magaalada Muqdisho in ay dhibaateeyaan. waxaan leeyahay taariikhda Farxaan waxay geli doontaa baal dahab ah. wuxuu ahaa mujaahid, wuxuu ahaa shahiid, wuxuuna ahaa xaq u dirir ku dhintay gacanta cadowga Soomaaliyeed. waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliyeed, waxaana ka codsanaynaa inay u soo duceeyaan, ayna alla u baryaan muwaadinka Soomaaliyeed ee geesiga ah ee u shahiiday, naftiisiina u huray sidii ayaka magaalada degan ay ku jeefa lahaayeen nabadgelyo.
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. wuxuu ahaa farxaan geesi aana marnaba ka dhicinin. wuxuu ahaa geesiyada Soomaaliya ugu adag una dagaalamay una soo horay naftiisa iyo waqtigiisa qaaliga ah, asagoo heli kara sidii madax badan u carareen ama ilmahooda ay dibadda ula baxeen ama uu asagaba tagay waddan kale labaad. ayuu farxaan wuxuu u taagnaay magaalada Muqdisho. waxaan leeyahay u soo duceeya, wuxuu nii horay dhiiggiisii, naftiisii iyo weliba ehelkiisii, asagoo madi ku ahay aabe iyo hooyo 3 gabdhood oo walaalo ah. maantay waxaan idinka codsanaynaa Soomaali oo dhan inay u soo duceeyaan farxaan, muuqaalkan ay sii sheergalayaan oo ayna gaarsiiyaan walaalaha Soomaaliyeed si aan ugu wada duceyno asaga oo u hoyday habeenimo Jimco ah gurigiisa rasmiga ah. farxaan wuxuu ahaa haliyey, geesi, wadani u dagaalamay una soo halgamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed soona difaacay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.